wabxo deegaan qadiimi ah ka tirsan gobolka Galgaduud isla markaana ah deegaan istiraatiiji ah oo xiriiriya degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud sidoo kale degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan wana deegaan kaabiga ku haya xuduudka kala qaybiya gobolada Hiiraan iyo Galgaduud muddo 15 sano ah waxa maamulay gacan ku haynta deegaankan kooxda argagixisada al-shabaab xooga dib u xiraynta deegaanka oo kaashanaya ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ayaa si buuxda uga wareegay gacan ku haynta deegaankan kooxda maafiyada ah ee baneysatay dhiigga iyo maalka shacbiga Soomaaliyeed ee al-shabaab oo maamulay gacan ku haynta deegaanka wabxiya deegaano badan ee hoos yimaada muddo ka badan 12 sanadood xooga dib u xiraynta deegaanka iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed si buuxda ula wareegay gacan ku haynta deegaanka wabxo ayagoon isku gadaamay dhammaan xaafadaha deegaanka iyo deegaano badan ee hoos yimaada wabxo wafdi uu hogaaminaya xildhibaan Maxamed Abuukar Jaafar oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ka soo jeeda halkan waa deegaanka wabxo ee ka tirsan gobolka Galgaduud qaybna ay ka yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo saraakiil ciidan iyo sidoo kale mas'uuliyiin oo kamid ah gudoomiyaha hore gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax ayaa soo gaaray deegaanka wabxo si ay u dhiirigeliyaan ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo kuwa dib u xiraynta deegaanka ee kooxda argagixisada al-shabaab kala wareegay gacan ku haynta deegaanka wabxo xooga dib u xiraynta deegaanka iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed si buuxda ula wareegay gacan ku haynta deegaanka wabxo ayagoon isku gadaamay dhammaan xaafadaha deegaanka iyo deegaano badan ee hoos yimaada wabxo gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Korneyl Nuur Xasan Guutaale iyo taliye Ismaaciil Cabdi Maalik oo horkacayay ciidamada la wareegay deegaanka ayaa xildhibaanka ku soo dhaweeyay deegaanka wabxo waxayna faahfaahin kooban ka siiyeen xaaladda deegaanka iyo guulaha laga gaaray dagaalka ka dhanka argagixisada al-shabaab marka koobaad qawaarijtu waa jabeen guushina waad u jeedaan marka labaad waxaan rabaa inaan la hadlo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka qawaarijtu ay ka barakicisay ee ay dhibaatada ugu geysteen waxaan leeyahay hooyayaal eedayaal abtiyaal walaalayaal soo dhawaada waa wiilashiini dhammaan feeriya waa wiilashiini waa kuwii naxariista aad u raaci jirteen waa kuwii aad ku dhaari jirteen waa kuwii aad marka xaajiida ka cagtirto waa jirteen cadowgu ma ahan inuu idinkaga dhigo bahalo waa kuwii macallimiintii qiimaha badnaa ee diinta soo bareen ma ahan inay gaalo idinkaga dhigaan ma ahan gaalo waa muslimiin dugsiga macallin cali cilmi kuwa ka soo baxay weey macallin Yuusuf Faarax kuwa ka soo baxay waay Sheekh Xuseen Cali Xaayi kuwa ka soo baxay waay waxa ay gaalo idinkaga dhigayaan waa wiilashiina adinku aad dhasheero soo tarbiyaysan diinta soo barteen waxa leeyahay soo dhawaada garabkeena istaaga cadowga bixiya sida reer Hiiraan ay u bixiyeen hooyo iyo wiil iyo gabar say u leeyihiin ay garab istaageen wiilashooda ay ugu bixiyeen ku bixiyaan leeyahay garabkeena soo istaaga diyaaradiina gacmo furan baa idinku soo dhaweynaa waxaan dareemaa dadka qaar inay isleeyihiin magaaladii waa la yimid waxaana laga noqohaa waxaan noqday nin aan dhulka lahayn laakiin nin dhulka leh meel u laabto ma jirto dadkan socdo waa dadka magaaladan lahay oo dhulkan ku dhashay oo qaarkood guryahan ay degan yihiin oo waalidkood aad tihiin dhammaanteen dad saasaan nahay dad meel u socdo ma lahan magaaladan cadowgu 100% waxaan garanti u seehaynaa in cadowga laga difaacdo intana laguma ekaan doono haddii alla yiraahdo insha Allah meelaha kale oo in ka haystaan oo ay ku sugan tihiin oo hadda noogu dhadhow sida u dhaqsaha badan lagu soo gaaray haddii alla yiraahdo insha Allah ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka sinaba looma kala harayo ayadoo nooc walba loo isticmaalaa laakiin waxa ogaatiin nimanka dhulkan qabsaday oo ku habsaday qaab jilcan kuma imaan xoogay ku yimideen xooggaas ay ku qabteen looga saaraa haddana cashiro kulul waa loo soo dhigay waxna waa soo arkeen hadda inta hartana waa la dhameystiraa haddii alla yiraahdo insha Allah waxba ha cabsanina mar nimanka niman jilcan waaye dadka shacabka bisay ka adag yihiin inay madax ka garaacaan oo xoolihiina ay qaataan oo gabdhihiina ay wataan oo adinka inay bahdilaan oo sharaftiina iyo magaciina ay tirtiraan u socdaan waana hadda waaba tirtiraan baad say ku socoto maxaa yeelay waxaan ka dareemaynaa magaaladan weyninka ay qabto inuusan maanta hal qof uusan ku jirin gudoomiyaha hore gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax iyo xildhibaan Cabdiraxiin Bareeso oo kamid ah baarlamaanka Galmudug ayaa dhankooda halkaas ka hadlay isla markaana fariin u diray bulshada deegaanka wabxo meesha aan joognaana waa magaalada wabxo ee gobolka Galgaduud kamid ah waxaan marka hore torta rabaa inaan u mahad celiyo oo aan ammaano ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka ee ka kala yimiday Hiiraan iyo Galgaduud baayl degan go'aansaday inay dulligii ummadan in muddo saarnay ka dulqaadaan ragaasi waxay rumaynayaan erayadii aan dhahayno ahaa inaan xadud lahayn
meelana way haraynaa inayna jirin nimankaas maanta waa hiiraan meel ka baxsan oo joogno galgaduud waa wabxana ku ekaamayno magaalo kasta waa tagayna wax dhibaal way geysanayaan intay sii joogaan oo dhibaato ma harayso waxyaabahan mulaaxadinana waxaa ka mid ah inta badan dadka ku dhimanaya meeshaan meedadkooda ku aragno Soomaali ma waa ajaanib dadkeenana saas inay ku sii haayaan rabaan waa u dhimanaynaa waa dhaawacmaynaa waa daalaynaa waa soconaynaa mana niyad jabayna hal maalin ilaa aan nimankaas meesha ka saarno war badan marba abcad aad u kulul dadkuna meel dheer ka yimideen hawl adagayna ku jiraan waxaan leeyahay Soomaaliyay isgarab qabsada maantay waad soo dagaalanteen qabiil oo soo dirirteen waxyaabo badan ay dhex yimid hogaamiye kooxayda ay dhex yimid wax badan ay dhex yimid intaasiba qarnimadiina weeqi jireen waxayna gaarsiiyeen inay kuwa ajaaniba oo aan islaamnimada ku dhalan noo sheegtaan wadankan inay noo sheegtaan halkaasina gaarsiis meeshaasi aan u noqonin inaan maanta kadib isgarab qabsano walaalo ahaano qarankeena aan dhisano oo awood leh waxa ilaahay mahadiisa 12 bisha 12aad inaan ku sugannahay degmada Wabxo oo muddo dheer nimanka cadawga ahayo khawaarijta ahay ay ka reebeen dawladnimada iyo horumarka ay ka reebeen magaaladan MCH kuma yaal ay gabar ku umusho wax ku yaala ma jirto waxaan rabaa inaan warkayga soo koobayo dadka magaaladan ay ka qaxiyeen waxa idin socdo waa annaga waxa hogaamiyaha xildhibaan Jacfar oo aad taqaanaan gudoomiye Nuur Fooley xildhibaan Khamsa oo galmudug ay annagoo dhan iyo dawladda federaalka beenta idin sheegan iyo waxa idin soo socda annaga waaye waxa idin kugu filan 15 sano oo dib u dhac ah maanta kadib aysan been idin sheegin iska ilaaliya meelaha ay joogaan waa target meel looga harayo ma jirto magaaladan waxa u timid dawladnimo iyo horumar waa ilaahay fadligiis guud ahaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo reer Hiiraan madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha waxaan rabaa inaan u mahad celiyo reer Gurceel oo howlgalka qayb nooga qaatay soo dhaweyn noo sameeyay si sharaf iyo qiimo badan gurigeena joognay beledweyne ilaa Maxaas si qiimo ku dheehan tahay oo dadnimo ku dheehan tahay oo ehelnimo ku dheehan tahay walaalahan waa u mahad celihaynaa ayaga garab noo ah annaga garab u ah hal cadawaan leenahay ilaahay idinkiis cadawgaasna waa ka adkaahaynaa waana niman khawaarij oo diinta baan ka sheegay aan sal iyo raad toona ku lahayn ilaahay idinkiis waa xilligii gabagabadooda yaal jooga dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka galgaduud jooga gaar ahaan heebtan halkan ku sugan dadka u dhashay been dambayaysan idin sheegin walaalayaal yeesan diin idinku marin habaabinin yeesan wax kale idin sheegin aaway magaaladan horumarkeedii lacagtay idinka qaadeen aaway waxay idin sameeyeen aaway dadka dariskiina fiiriya Maxaas horumarka ka jiro dawladnimada ka jirto waxbarashada ka jirto aaway wixii oo dhan aaw walaalayaal intaas maanta yeesan noo dhaafin nimankan khawaarijta waa laga adkaaday ilaahay ana garabkooda ka baxay xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada safarkiisa uu ku gaaray Wabxo wuxuuna si wada jir ugu mahad celiyay ciidamada dawladda iyo kuwa dib u xiraynta deegaanka guusha ay u soo hooyeen bulshada deegaanka iyo waliba qaranka Soomaaliyeed waxaan u maleynaa meeshan muddo 15 sano ay haystaan cadawga al-shabaab waqtigoodu waa dhacay xamaraan ka soo baxnaa annaga beledweyne nimid oo heer Hiiraan dagaal xoogan ku jira oo nimanka mar hore iskala dagaalamay weli la ku wadaan u nimid wayna soo dhaweeyeen haddana waa nala socdaan reer Gurceel oo ayaguna mar hore ka sii horeeyay reer Hiiraan oo shabaabka iska celiyay oo iska soo raacdiyay ayaguna garabkeena socdaan saddex bilood oo dadka meeshan ka han ku wada soconaa kama hari doono nimankan insha Allah ilaa iyo meesha ugu dambaysa go'aamada aan soo qaadanay inta qof Soomaali dib ku hayaan inaan ka harnaan go'aansanay dhalinyarada naftooda soo hortay oo soo aadan nimankan inay la dagaalamaan ayaguna aad u mahadsan yihiin niyadooduna waxaan maleynaa maanta inay inta shala ka fiican tahay iyo inta daraad birina waxaan rajaynayaa inay ka sii fiicnaato intaas dadka deegaanada degan dad buurnimada u nugul waay runtii marka laga hadlo ummadaha kale meel laga dagaalamaa jira meel la isaga celshaa jira meel la isku soo baxaa jira ayagii deegaankan iyo tirada badan iyo magaalada weynka badan leh waxaan u maleynayaa in yaroo koobana ku dhex jirtay intii ay tiri ka bax magaalada hub waa haystaa ma ka warqabnaa 10 wiilo tiraawada anagu gudaheena naga bixi weysiyeen naga tag waa laga waay tan waa arnaa magaalooyinka daban oo arki doona hadii ay yiraahdo bal sida ay una yeelaan
laakiin waxaan sheegaynaa annagu inaanan haddii ay dadnimo yeeshaan wax iska celshaan waa soo dhowey doonaa doqonnimadii ay qabeen haddii sii haayaan looma istaagi doono kuwan waa laga dulqaada haddii alla yidhaahdo waxaana rajaynaynaa waqtigooda inuu iska dhammaado kuwan ciidamada dowladda iyo kuwa dib u xuraynta deegaanka ayaa isu gadaamay gebi ahaanba xaafadaha deegaanka Wabxo iyo deegaano kale oo hoosaga degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waxaana gebi ahaanba deegaanka Wabxo isaga qaxay dadkii deganaa xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar ayaa fariin u diray bulshada reer Wabxo uguna baaqay in guryahooda ay ku soo laabtaan lana shaqeeyaan ciidamada dowladda iyo kuwa dib u xuraynta deegaanka niyad xumada iyo dulinimada ay qaadanayaan oo ku jirta dadka deegaanada degan hoos ka baxshaan deegaanada qaar waxaa la arkay qaybo ay heestaan qaybana maaragtay laga cishaday laakiin dad ayaga dhammaay la wada haysto oo hal qof wax iska dhaha ayna jirin oo kii madaxa taagan inta ordo oo maaragtay xamar orda iyo meel kale iyo magaalooyinkaas kale oo rag xoreysta doqonimaas wax la qaadan kara ma aha waxaan noo ballan inaan iska celino gurihiina ku soo laabta cidda idin tiraahda gurihiina kuma laaban kartiin iska celiya annagu ma aha ahaato laakiin gurihiina aad ka qaxdeen dad waayeela ilmihii wixii dhammaan in duurka loo bixiyo oo duurka ku yihiin waxaa inta sharaf iyo qiimo badan inaad gurihiina ku noolaatiin deganaatiin cidda idin tiraahda ka bax aad iska celisin waa diyuusnimo in adoo kale ana gurigaada ka bax ku yiraayay ilmahaada iyo duurka geey ayadan wax dhib ku haystaa aan jirin inaad ilmahaada duurka u wado oo gurigaada ka qaxdo dadka deegaanada deegaanada keeni oo dadka inaan xoreyno oo nimid meeshaan anoo xoolan uma soo doon xilna uma soo doon labadaas dadku ku wararsan yihiin waxaan u nimid meeshaan inaan ka xoreyno waqtigan haysta maadaama ummadda deriska ay iska xoreeyeen in kaashadaan in garabsadaan aan ka sugeynay kaashii garabsiga waa weli waa uga fadhinaa diyaar u lanahay anaga inaan garabkooda istaagno oo ka celino nimanka qawaariigta oo shayaadiinta ummadda dhibaateeyey marka waxaan leeyahay cid kasta oo Soomaali ah nimankan aan iska bixino wax noo dhaamo ma arkayno aan isgarabsano aan iska wada celino nimankan qabashada deegaanka Wabxo ee soo gashay gacanta dadweynaha iyo dowladda Soomaaliya ayaa ka dhigan in kooxda argagixisada Al-Shabaab looga itaal roonaaday howlgallada ka socda deegaano badan ee ka tirsan gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo gobolka Shabeellaha Dhexe. Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse, warbaahinta qaranka Wabxo.